بسم الله الرحمن الرحيم أخيارت قيمها بدن ميل كستوات شوكتان وان إدين سلامي مقعيقو وحسن مولد محمد حسني هالكاك نغلا سعوتان waa kanaalka xog iftiinshe oo ay idinku soo daayo barnaamijyo xiiso leh oo xul ah iyo hadba waxa ay dadku xiisaynayaan haddaba maanta بربرة الصومالي حيث تعتزم إنشاء قاعدة عسكرية هناك. يتبع ميناء بربرة ما يسمى جمهورية أرض الصومال التي أعلنت استقلالها عن الصومال عام 91 غير أنها لا تحظى باعتراف دولي وقد وافق ay ku taalo marsada caalamiga ee Berbera waxa aynu soo qaadan doonaa afar qodob oo muhiim ah qaybteena koobaad taariikhda silsilada taxanaha magaalada Berbera maadaama ay tahay marsada Berbera ama gobolka ay ku taalo juqraafi ahaan Berbera meel taariikhi ah oo isku xidha geeska Afrika iyo dunida kale ee caalamka haddaba waxaynu soo qaadan doonaa afar qodob oo xiiso leh qodobka koobaad xagee ayuu ka yimi magaca Berbera qodobka labaad maxaa ka dhaxeeya gobolka saaxil ee Berbera ka tirsan tahay iyo gobolka ay deegaan Berberku waqooyiga Afrika qodobka saddexaad goorma ayaa Berbera la degay qodobkeena afraad imisa xadaaradood ayaa soo maray magaalada Berbera haddaba ku soo dhawaada kanaalka xog iftiinshe haddii aad nala socon subscribe inaad noo saartaa muhiim ayay noo tahay waxaanay nagu dhiirigelinaysaa inaynu soo diyaarino barnaamijyo xul ah oo xiiso leh isla markaana bulshada u taraya sidoo kale like iyo share waxay nagu dhiirigelinaysaa inaynu soo badino barnaamijyada ku soo dhawaada barnaamijkeena maanta xagee ayuu ka yimi magaca Berbera waxa ay taariikhyadu sheegayaan markii aanu baaritaan ku sameynay inuu magaca Berbera ka yimi boqor ka tarin jiray dhulkii la isku oran jiray dhulkii uduga ee laga dhoofin jiray fooxa xabkaha malmalka laga soo bilaabo xeebaha Sayla silsilada buraleyda Goys laga gaarsiiyay buraleyda Almadow iyo xeebaha Xiis iyo Mayd ninkaas oo lagu magacaabi jiray Maxamed al-Berbera oo ka tarin jiray xeebaha Somaliland taariikhdu markay ahayd 780 ilaa 800 sidoo kale taariikhyahanada qaar ayaa qaba sida Ibn Battuta in magaca Berbera uu ka yimi qoomiyadda Berberka ee degtay gobolka saaxil ee waqooyiga galbeed ee Afrika oo degi jiray xeebaha Berbera qodobkeena labaad maxaa ka dhaxeeya gobolka saaxil ee ay degaan Berberku iyo gobolka saaxil ee Berbera ka tirsan tahay dadka qaar ayaa aaminsan sida dhulmareenkii muslimka ahaa ee Ibn Battuta in dad Berber ah ay ku noolaan jireen magaalada Berbera sababtaana loogu bixiyay xidhiidhna ka dhaxeeyo Berberku waa dad ku nool wadamada gobolka saaxil ee waqooyiga Afrika sida wadamada waqooyiga Mali koonfurta Liibiya waqooyiga Niger qaybo ka mid ah Masar Tunisia Mauritania Maghrib ama Morocco sidoo kalena dadkan waxa loo yaqaanaa Amaasiq waana dad islaam ah oo ku nool waqooyiga Afrika waana dadka ugu badan ee dega wadamada waqooyiga Afrika waana dadkii u horeeyay ee degay dhulkaas sida la aaminsan yahay mana aha dad Carab ah balse waa dad cas oo qurux badan isla markaana ku nool wadamada Saxaraha. مرحبا بكم. تعيش الجزائر على وقع مظاهرات احتجاجية للأمازيغ المنددين بتعطيل البرلمان لقانون تعميم اللغة الأمازيغية على كامل مدارس البلاد. الحكومة نفت نية التعطيل بينما عم الجدل في الصفحات الإلكترونية حول اللغة والهوية. qodobkeena saddexaad goorma ayaa la degay Berbera sida taariikhyahanadu sheegayaan Berbera waxa la degay bilowgii 800 waana muddo laga joogo 12 qarni qodobkeena afraad imisa xadaaradood ayay soo martay magaalada Berbera Berbera waxa ay soo martay xadaarado kala duwan sida Abbaasiyiintii waxaanay soo martay sidoo kale waxa ay soo martay boqortooyinkii Adal iyo Ifaad oo ka tali jiray xeebaha geeska Afrika gaar ahaan dhulka Soomaalida sidoo kale magaalada Berbera waxa ka soo tali jiray oo soo maray raadad muuqdana kaga tagay sida biyaha Dubaar ee magaalada Berbera iyo astaanta magaalada Berbera ama noobiyada ama birta noobiyada ee kala hagta maraakiibta ahna astaanta magaalada Berbera sidoo kale masjidka qadiimiga ee Tukriga ayaa ka mid ah astaamihii uu kaga tagay Tukrigu ilaa haddana laga arkayo magaalada Berbera marka ka bacdi Tukrigu waxa uu ku wareejiyay masaarida
intaanu soo gelin gumaystihii Ingiriisku bilowgii sanadii 1884 markaasoo gumaystihii Ingiriisku soo galay xeebaha Soomaaliland. sanadii 1884 ilaa iyo laga soo gaaray sanadii 1941 magaalada Berbera waxay ahayd caasimadii dhulkii la oran jiray Somaliland British Protectorate ee Ingiriisku ka talin jiray ee maxkamada Ingiriisku ka talin jirtay maantana loo yaqaan Somaliland. sanadii 1941 wixii ka dambeeyay caasimadda Somaliland waxaa loo wareejiyay magaalada Hargeysa oo ilaa hadda ah. magaalada Berbera waxaa laga helaa dhismayaal qadiimi ah oo jiray boqolaal sano sida kuwa xaafadda Daaro leh. haddaba daawade ha moogaanin inaad subscribe noo saartid siina share gareysi barnaamijkani sidoo gaaro bulsho badan oo Soomaaliyeed oo xiisaynaysa magaalada Berbera. qaybta labaadna si dhaqso ah baan u soo gelin doonaa la socda.